Kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel aad joogtaanba aad iyo aad baan idin salaamayaa waqtigu ha idin wacnaado. Waxaan jeclaystay inaan ila wadaago qisho jacayla oo ku dhacday fanaankii caanka ahaa ee guud ahaanba geyiga Soomaaliyeed laga yaqaanay Allah ha u naxariistee Shay Miro Dacar oo magaciisu ahaa Cabdilaahi Miro Dacar. Shay Miro Dacar waxa uu ku dhashay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag qiyaastii 1960kii, halkaasoo uu ka bilaabay waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo midii saraba. Markii dambe waxa uu noqday dawaarle amaba xarqaanle sida dadka qaar u yaqaanaan. Muddo markii halkaa uu ku noolaa ee uu ka shaqaynayay Cabdilaahi waxa ay yimaadeen magaalada Hargeysa isaga iyo nin ay saaxiibo yihiin, halkaasoo ay isku barteen gabadh reer Hargeysa isla markaana uu jacayl aad u qaaday. Jacaylkaasi oo muddo socday, Cabdilaahi markii dambe wuu ku guuleystay inuu guursado gabadhaasi oo ay xaaskiisa noqoto. Magaalada waxay degeen Ceerigaabo halkaasoo ay ku noolaayeen. Kadibna waxaa qarxay dagaalkii ka dhacay guud ahaanba gobollada waqooyi ee hadda loo yaqaano Somaliland, dagaalkaasoo u dhexeeyay dowladdii Maxamed Siyaad Barre iyo ciidamadii SNMta. Kadib Cabdilaahi iyo gabadhiisii waxay haddana u kala irdhoobeen. Waxaa soo gaadhay gabadhii Cabdilaahi qabay in ehelkeygii dad badan ay ku dhibaatoobeen dagaaladii ka dhacayay magaalada Hargeysa, isla markaana qax iyo dhibaato ay jirto. Waxay goosatay inay soo eegto dadkoodii oo war iyo wacaal wixii ay ka heli kartaba ay ka war doonto ehelkeygii, walaalaheed, aabaheed iyo intii kale magaranaysaa ka ag dhoweydba. Way soo safartay, waxay timid magaalada Hargeysa iyadoo markaasi ehelkeygii u timiday. Kadibna ehelkeyga oo aan la rabin ninka ay guursatay ayaa markii dambe waxaa loo qalqaaliyay oo loo diray dalka Jamhuuriyadda Jabuuti si Cabdilaahi looga fogeeyo. Cabdilaahi muddo ayuu gabadhii raadinayay, war iyo wacaalna wuu ka waayay, ilaa waraaqo badan oo aad u badan uu soo dirayna uu ka war waayay. Kadibna Cabdilaahi oo jacaylkii la daranyeysan isla markaana jacayl xuni hayo ayaa u wareegay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, halkaasoo uu muddo ku noolaa. Kadibna fanka ayuu Cabdilaahi u soo jeestay oo markii hore uu jeclaa isla markaana ka mid ahaa hamiyadiisa. Waxa Cabdilaahi uu bilaabay inuu barto tumista kamanka amaba cuudka, taasoo muddo kooban uu ku bartay. Kadibna fanaan reer Boosaaso ahaa oo aad deegaanadaasi uga caan ahaa ayaa ugu tegay. Wuxuu ka codsaday inuu u sameeyo hees, isla markaana qisadii jacaylkiisa ayuu uga warramay. Kadibna abwaankii waxa uu u sameeyay heesta la yiraahdo Nabar, amba ay dadka qaarna u yaqaanaan Muxuu Nabarka Caashiqu ii geystay naaf ah. Markaa qiyaastii 1996kii ayuu Cabdilaahi Miro Dacar amaba Shay Miro Dacar soo saaray heestiisii ugu horreysay, taasoo uu kaga warramayay jacaylkiisa. Kadibna haddana wuxuu sameeyay heestii labaad ee uu kaga warramayay arrimaha jacaylka iyo fariimihii iyo waraaqihii uu u gudbiyay gabadhaasi oon ilaa hadda looga soo jawaabin, oo la yiraahdo heesta Adduunyadu wareer iyo warwar iyo dhibaato iyo ilin waayo badan ah. Ruuxa aan waraaqdiyo wargeysyada u qorayaa qalbigiisu adaga. Intaa kadib Cabdilaahi Miro Dacar waxa uu soo wareegay magaalada Hargeysa ee caasimadda deegaanka Somaliland, halkaas oo uu safarkiisa markii uu ku yimiday uu ka sii waday howlihiisii fanka. Cabdilaahi Hargeysa markuu soo gaadhay wuxuu ogaaday in gabadha laga qariyay isla markaana loogu diiday hayb ahaan, maadaama uu ka soo jeeday beelaha Soomaalidu u taqaano Gabooyaha amaba Midigaha. Cabdilaahi wuxuu markii dambe sameeyay heestii Bishaaradii Naftayday oo uu kaga warramayay jacaylkii iyo isla markaana inaan hayb ahaan loo diidin, oo ay ka mid ahayd Bishaaradii Naftayday Burta waxaan u soo maray, batalaalihii uu boodhari ku aasnaa
ilaa buurtii Sheekh iyo Booraniyo Hadaaftimo, iyagoo barwaaqaa, biyuhuna qulqulayaan, balliyaduna buuxaan. Markaa waa kii lahaa bini'aadan baanahay, bashar kula midaanahay, ruux ku baahan baanaye, barbarkaaga ila qabo. Uu kaga hadlayay in magaranaysaa laba qof oo siman ay yihiin oo bini'aadama oo Ilaahay abuuray oonan wax isdheer yihiin aysan jirin. Muddo Cabdilaahi markii uu ku noolaa magaalada Hargeysa wuxuu noqday fannaan caan ah oo geyiga Soomaaliyeed guud ahaanba aad looga yaqaano. Waxa uu sameeyay amaba u qaaday heeso badan oo runtii bulshadu aad u jeclaysato. Cabdilaahi waxay casuumadii uga timiday magaalada Jabuuti ama dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, halkaasoo laga soo codsaday inuu bandhig faneed amaba bandhig suugaaneed ku sameeyo. Kadibna waxa uu aqbalay oo u duulay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Markii la soo dhejiyay in Cabdilaahi uu Jabuuti imanayo, gabadhii xaaskiisa ahayd ee marka horena uu jeclaa ayaa aad u jeclaysatay maadaama ay xogtaa heshay, islamarkaana ay ogaatay inuu Cabdilaahi noqday fannaan caana oo guud ahaanba geyiga Soomaaliyeed ka caana, inay timaado habeenkaasi bandhigiisa. Sida oo kale gabadhu waxay ahayd mid marwo ah oo la guursaday oo nin qabo. Cabdilaahina kama warqabin in magaranaysaa gabadhaasi ay Jabuuti degan tahay oo xarunteedu ay tahay wadanka Jamhuuriyadda Jabuuti, iyo in ay iman doontoba bandhigiisa. Sidii ayuu ku tegay Cabdilaahi. Heeso badan ayuu halkii ka qaaday oo heesihii iyada uu sameeyey ay ku jiraan oo bulshaduna aadka u jeclayd, sida Muxuu Nabarka Caashiqu ii Geystay Naafaha, iyo heestii Adduunyadu Wareer iyo Warwar iyo Dhibaato iyo Ilin Waaye Badanaa. Heeso badan oo ku saabsan qisadaasi iyo heesta kale Bishaaro ayuu ka qaaday. Kadibna markii showgii dhammaaday oo iyadna gabadhii ay ka mid ahayd dadkii daawanayay, ayuu Cabdilaahi soo laabtay. Dad goobjoog ahaa oo madasha joogay oo iyadana ku arkay Cabdilaahina ku arkay ayaa markii dambe Cabdilaahi Hargeysa ugu sheegay in gabadhii uu jeclaa ay habeenkaasi joogtay bandhigga, islamarkaana ay Cabdilaahi dartii u timiday si ay u daawato. Cabdilaahi arrintaasi u qaadan waa ayay ku noqotay aad iyo aadna boogo u dheeyay muddo sannada ah oo 10 sano ku dhow ayaa dib ugu soo kacdoomay, taasoo uu dareemay runtii xanuunkii iyo dhibaatadii jacaylkaasi uu ka soo maray. Cabdilaahi si uu isku ilowsiiyo wuxuu guursaday gabadh ku noolayd markaa magaalada Hargeysa oo xaaskiisii labaad noqonaysa, taasoo uu la aqal galay. Shay Mino Dacar ama Cabdilaahi Mino Dacar wuxuu halkaa kasii waday fankiisii iyo suugaantiisii, isagoo ahaa fanaaniinta aadka looga jecel yahay guud ahaanba dhulka Soomaalidu degto. Markii dambe safaro badan ayuu aaday. Soomaali badan oo dalalka dibadda iyo gudahaba joogta ayaa soo casuuntay. Heeso badan ayuu halkii ka qaaday. Wuxuu noqday fannaan guud ahaanba shanta Soomaaliyeed aad u jecel yihiin. Cabdilaahi Allah u naxariistay sanadkii 2016 ayuu ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Halkaas uu kaga tegay caruur 4 ah. Guud ahaanba taariikhda jacayl ee fanaankan ayaa intaasi kusoo eeg, iyadoo bulshaduna aad uga warhayeen jacaylkiisa iyo xaaladihii uu marayay. Allah ha u naxariisto. Saaxiibayaal, aad baad mahadsantihiin. Subscribe-ta, like-ta iyo share-ka nagu caawiya. Qisooyinka noocan oo kalena waxaan jecelnahay in la wadaagno runtii dadka caanka ah ee bulshada Soomaaliyeed magaca ku leh ku dhacay. Aad baad mahadsantihiin.